waxaan daawada meel walba aad caalamka ka joogto ku soo dhawow barnaamijkeena wararka isha surdoonka oo aanu maanta ku faaqidayno dagaalada Libiya cidda ku dagaalamaysa. Libiya waa dal tiro ahaan gaaraya 6.4 milyan oo qof. Libiya ayaa qaaradda Afrika kaga taala waqooyiga. Dalkaasi ayaa marxalad adag ku jira kadib markii uu saameeyay kacdoonkii Carabta ee ka dhacay sanadkii 2011 halkaasi oo madaxweyne Muammar al-Qaddafi lagaga tuuray xukunkii Libiya. Dagaalka Libiya ayaa bilowday kadib markii ciidankii Muammar al-Qaddafi iyo xoogag gacan saar la leh dowladaha shisheeye sida gaashaanbuurta NATO markaasi doonayeen in ay la wareegaan dowladda Libiya. bilooyin kadib waxaa xoogaga dagaalka kula jiray Muammar al-Qaddafi loo yaqaanay National Transitional Council oo ay sheegeen in ay qabteen madaxweyne Muammar al-Qaddafi kadibna dilay. kadib dagaalo sokeeye ayaa dib uga qarxay dalka Libiya sanadkii 2014 kadib markii kala iibsiga shidaalku hoos u dhacay iyaga oo maleeshiyo iska soo horjeeda ay ku dagaalameen goobaha shidaalka ayna isku qabsadeen ciddii maamuli lahayd. ka hor kacdoonkii Libiya waxay ahayd dal aad qani u ah halkaasi oo caafimaadka waxbarashada iyo korontadu ay bilaash ahaayeen. xaaladda Libiya ayaa ah mid adag iyadoo ay jirto xaalad amni ah oo markaasi isu socodka dalka gudihiisa aysan amni ahayn. waxaa si caadi ah noqotay afduubka kadibna qofkii lagu sii daayo madax furashada iyadoo afduubayaashu ay u badan yihiin dad ajaanib ah oo markaasi u tallaaba dalalka Yurub. waxaa si adkaatay safarka gudaha dalka Libiya waxaana sababay aqoonsiga sharciga oo markaasi qofku wato in uu sheego gobolka uu ka soo jeedo taasi ay khatar ama halis ku tahay noloshiisa. sidoo kale hay'adda qaramada midoobay ayaa sheegtay in 200,000 oo qof oo Libyaan ah ay qaxooti ku yihiin gudaha dalkaasi Libiya halka kalena ay 1.3 milyan oo qof ay u baahan yihiin xaalad bani'aadanimo. xaaladda dalka Libiya ayaa saameysay nolosha dadka halkaasi ku nool. maciishada ayaa sare u sii kacday sidoo kale daawooyinka dalka gudihiisa ayaa noqotay mid caqabad ah ayna sii yaraadeen ama noqotay in la heli waayay. Libiya oo caan ku ahayd korontada bilaashka ah ee dalka afartiisa geesood ayaa haatan waxay noqotay gobolada ama magaalooyinka qaarkood koronto la'aan. waa kuwa isku haysta Libiya ee markaasi doonaya xukunka dalka Libiya. dalka Libiya waxaa ku dagaalamaya dowladda ay aqoonsan tahay qaramada midoobay ee loo soo gaabiyo GNA Government National Accord. sidoo kale Libya National Army LNA oo uu hogaamiyaha afgambidoonka ah ee Khalifa al-Haftar oo markaasi loolan adag ku haya dowladda la aqoonsan yahay. waxaa sidoo kale ku dagaalamaya dalkaasi maleeshiyaad kala duwan iyo kooxda ISIS ee argagixisada ah oo goobo yaryar ka haysta dalka Libiya. heshiisyo la hor keenay labada dhinac ma lagu guuleystay. 11 bishii January ilaa 14 bishii January ee sanadka 2020 ayaa heshiis waxaa soo bandhigay dalalka Turkiga iyo Ruushka oo ay halkaasi ku doonayeen in labada dhinac ay isku haya Libiya ay heshiis xabad joojin ah gaaraan. dowladda ay aqoonsan tahay qaramada midoobay ee hogaamiye ra'iisul wasaare Faisal al-Sarraj ee GNA iyo kuwa uu hogaamiyo Khalifa al-Haftar ayaa ka qayb galay heshiiskaasi balse wax natiijo ah laguma gaarin. hogaamiyaha afgambidoonka ee dalka Libiya Khalifa al-Haftar ayaa isaga baxay goobihii heshiiska isaga oo aanan wax warqad ah saxiixin. Faisal al-Sarraj ayaa saxiixay heshiiska xabad joojinta balse waxaa ka diiday Khalifa al-Haftar. isla bishii January 19 ayaa kulan ay hogaaminaysay Angela Merkel ayaa lagu qabtay caasimadda Berlin ee dalka Jarmalka iyadoo lagu heshiiyay in loo hoggaansado xayiraadda hubka ee ay qaramada midoobay ku soo rogtay dalka Libiya. 16 dal ayaa saxiixday heshiiskaasi laguna heshiiyay in la sameeyo qorshe iyo dadaalo sidii loogu hirgelin lahaa xayiraadda hubka saaran dalka Libiya iyo sida loo kormeeri lahaa in uu dhaqan galay iyo in kale. 24 bishii February ee sanadkan magaalada Geneva ayaa qaramada midoobay soo jeedisay kulan lagu heshiisiinayo labada dhinac ee ku loolamaya dalka Libiya balse waxaa diiday labada dhinac in ay ka soo qayb galaan heshiiskaasi iyada oo qof waliba uu cudurdaar sheegtay sababta ay uga soo qayb gali waayeen heshiiskaasi ay qaban. dowladda GNA ayaa sheegtay sababaha ay uga soo qayb gali weysay kulankaasi ayaa ahaa in xal waara laga gaaro dhanka xoogaga militariga. sidoo kale dhanka General Khalifa al-Haftar ayaa sheegay
sababta ay uga soo qayb geli waayeen ay tahay in ay soo gudbiyeen 13 magac ee ka soo qayb geli lahaa dhankooda balse qaramada midoobay ayaa ansixisay 8 magac oo kali ah heshiiskaasi ayaa noqday mid lagu guul dareystay in uu dhaco yuu yahay General Khalifa al-Haftar waa nin u dhashay dalka Libiya kana tirsanaa ciidamada xoogga dalka Libiya 1980 ayuu ka baxsaday ciidamada Libiya waxa uu cararay dhanka dalka Mareykanka Khalifa al-Haftar ayaa dalka ku soo laabtay kadib markii uu Muammar al-Gaddafi laga tuuray xukunka Haftar ayaa bishii May ee sanadkii 2014 ka bilaabay olole uu ku sheegay in uu kaga sifeynayo argagixisada una dib ugu soo celin doono sharafta ay lahayd dalka Libiya xoogaga daacadda u ah Haftar ayaa la weegay magaalada istiraatiijiga ah Benghazi halkaasi ayaana dagaal kuga galeen kooxda hubaysnaa oo maleeshiyaad ah Haftar ayaana ka helay kalsooni buuxda qabaa'ilada iyo ganacsatada reer Libiya si uu xoogagiisa u helo awood iyo mid aqoonsi ah Haftar ayaa sidoo kale taageerayaal dagaalyahanadii hore ee xoogaga Libiya ku soo daray xoogagiisa iyo sidoo kale waxa uu baaq u diray beesha caalamka isagoo sheegay in uu yahay qofka kaliya ee xal u heli kara dalka Libiya dowladaha ayaa ku lug leh dagaalka ka socda Libiya Khalifa al-Haftar waxa taageero uu ka helaa dowladaha sida Ruushka, Faransiiska, Masar, Isutaga Imaaraadka Carabta iyo wadanka Sacuudiga dowladda Ruushka ayaa taageerta xoogaga General Khalifa al-Haftar Ruushka ayaa lagu eedeeyay in uu koox calooshoodu shaqaystayaal ay ka socdo shirkadda Wagner Group ee gaaraysa 1200 ama 2000 oo dagaalyahano in ay u direen xoogaga General Khalifa al-Haftar sida ay uga caawiyaan dagaalkaasi balse Ruushka ayaa isaga fogiyay eedeymahaasi dowladda Faransiiska ayaa sidoo kale taageero siisa xoogaga Khalifa al-Haftar ee ku aadan diblomaasiyadda iyo dhanka militariga Faransiiska ayaana xanibay bayaan ay soo saartay midowga Yurub oo ay ku sheegtay in Khalifa al-Haftar uu joojiyo weerarada uu ku hayo caasimadda Tripoli ee dalka Libiya bishii Abriil ee sanadkan ayaa xuduudda Tunisia loo diiday 13 qof oo u dhalatay dalka Faransiiska ay uga sii gudbaan xadka Tunisia kadib markii ay qolihii Faransiiska ay sheegi waayeen hubka ay siteen meesha ay ka keeneen sidoo kale saldhigga uu lahaa General Khalifa al-Haftar lagu arkay gantaale ay dalalka Faransiisku leeyihiin oo markaasi la sheegay in ay uga tala galeen sidii uu General Khalifa al-Haftar ugu dagaalami lahaa dowladda Masar ayaa sidoo kale taageertay General Khalifa al-Haftar iyadoo la sheegay in ay hub uga soo gudbiso xuduudda Masar ay la leedahay dalka Libiya sida wararku ay sheegayaan Masar ayaa taageero siisa Haftar kadib markii dalal ka mid ah Imaaraadka Carabta ay taageero siiyeen General Khalifa al-Haftar Masar ayaana toddobaadkan waxa ay Imaaraadka ku eedeysay jabkii ka soo gaaray Khalifa al-Haftar in Imaaraadku uu sabab u ahaa dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa taageero buuxda siisa General Khalifa al-Haftar oo ay ka caawiso dhanka hubka iyo siyaasadda kale Imaaraadka ayaana lagu eedeeyay in uu hurinayo dagaalka ka socda dalka Libiya Imaaraadka ayaana 39 dayuuradood oo hub ah gaarsiiyay dalka Libiya isagoo isticmaalaya garoonada Eritrea iyo Suudaan Imaaraadka ayaana waxa la sheegay in uu hanaanka difaaca ee Ruushku sameeyo u soo iibiyay Khalifa al-Haftar si uu uga hortago ciidamada dowladda la aqoonsan yahay oo taageero ka helaya dowladda Turkiga halkaasi oo daroonka dayuuradaha Turkiga ee aan ciduna wadin ay ardaadiqaha kaga dhigeen habka difaaca Ruushku uu sameeyo oo isticmaalayeen Khalifa al-Haftar kaas oo Imaaraadku gaarsiiyay boqortooyada Sacuudiga ayaa taageero xoogan siisa General Khalifa al-Haftar Sacuudiga ayaana la sheegay in ay u soo bandhigeen 10 milyan oo dollarka Mareykanka ah Khalifa al-Haftar si uu dagaal culus ugu qaado caasimadda Tripoli ee xarunta u ah dowladda la aqoonsan yahay ee GNA oo markaasi caalamka ay aqoonsan tahay lacagtaasi oo ay soo bandhigtay Sacuudigu in lagu laaluusho hogaamiyaasha qabaa'ilka kala duwan ee gudaha Libiya iyo in uu dagaalyahano hor la qorto si ay ugu dagaalamaan Haftar ayaana booqday dalka Sacuudiga bishii Maarso ee sanadkan halkaas oo ballanqaad fiican kaga helay oo maaliyadda ku saabsan dowladda Libiya ee caalamku aqoonsan yahay waxa taageera dowladaha sida Turkiga, Talyaaniga iyo Qatar dowladda Turkiga ayaa ah taageeraha weyn ee dowladda GNA ee uu hogaamiyo Fayez al-Sarraj dowladda Ankara ayaana xoogag military ku taageerta dowladda GNA kadib markii baarlamaanka jamhuuriyadda dalka Turkiga uu ansixiyay in ciidamo loo daadgureeyo dalka Libiya dowladda Turkiga ayaana ah taageeradeedu mid ay ka muuqato gudaha Libiya taas oo dagaalkii gudaha Libiya u yeeshay waji kale
ka hor taageerada dowladda Turkigu siiso Libiya waxay ahayd mid ku jirta xaalad jahawareer ah oo maanta ka sii liidata taas oo ciidamada Xaftar ay weerar ku ahaayeen dowladda Tripoli balse kadib markii uu Turkigu taageeray waxa ay gaartay guulo muhiim ah taas oo inta badan garoonadii caalamiga ah iyo goobihii istaraatiijiga kala wareegtay dowladda Qatar ayaa taageerta dowladda GNA ee caalamka aqoonsan yahay ee Libiya Qatar ayaa siisay GNA dhaqaalo iyo xoog military iyadoo ka qaadata kaalin weyn dib u dhiskii dowladda ay beesha caalamka aqoonsan tahay ee Libiya dowladda Talyaaniga ayaa taageerta dowladda Libiya ee caalamka aqoonsan yahay iyadoo in badan sheegtay in ay dhexdhexaad ka tahay xaaladda Libiya balse ay aqoonsan tahay dowladda beesha caalamku ay taageerto Libiya ayaa dagaal ka jira tan iyo sanadkii 2011 balse mar kale ayaa dagaal waji kale waxa uu Libiya ka soo cusboonaaday sanadkii 2014 kaas oo ilaa maanta ka taagan xaaladda Libiya ayaana ah mid aan Libiyaanku kaliya aysan ku dagaalamaynin oo ay dowladaha aynu soo xusna ku hardamayaan balse qaramada midoobay ayaa toddobaadkii hore waxa ay sheegtay warbixin ay soo saartay in ay dowladaha hurinaya colaadda Libiya ay digniin u dirayso kuwaas oo ay ugu horeeyaan Imaaraadka Masar Ruushka iyo dowlado kale daawadayaal intaas ayaan ku soo koobaynaa warbixintii aanu ku eegaynay dagaalka sokeeye ee Libiya fadlan aragtidaada inoogu reeb qaybta commentiga mahadsanid